بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعند ما باقيارتها هودا نغلا xidhiidhay halkani waa Star TV xaruntiisa guud u kuleeyay magaalada Hargeysa daawadayaal waxaan soo gaarnay amintii aan hawadeedii soo marin jirnay barnaamijkeena xiisaha iyo xulashada wargeysada barnaamijka ayaa waxaynu ku soo qaadanaa warbixinaha ka soo baxa dalka iyo daafaca caalamka intiisa kaleba iyo sidoo kale warbixino caafimaad barnaamijkana alaaba waxay idila socodsiisaa sidoo kalena isku soo dibariday anigoo Nishaad Farxaan Caliya daawadayaal TV-ga caalamiga Star TV waxa uu taasi tiraanyada u diraya abwaankii weynaa Xuseen Xirsi Caadib ee loo yaqaanay Boon Xirsi oo 17kii bishii 12 2016 ku geeriyooday magaalada Hargeysa inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun rabbi naxariistii jannaha ka waraabiyo ehelkii iyo qaraabadii uu ka baxay iyo waliba qaranka Soomaaliland waxaan idin ka diyaarinay warbixin kooban oo ka waramaysa taariikh nololeedkiisa intii aan ka xasuusano warbixintani waxa wax ka qoray wargeyska Geeska Afrika ee ka soo baxa magaalada Hargeysa الله ونحرستي أبوانك وحا وكودا شميك قارهان ديغان كبالقبالي ويدي وحا لوران شري عصب إبراهيم من كستو مرر بضان وأبوانك لويدي حلقا ودشيو كجا جوابي شري كفتن لكن قياس عن وحا وقيريو دي ساقو دادي سلوغو قياسي كرو تضباتا وحا ومرحوم كوكسو برباري هالكاس مادام قويسكا وكسو تشيدا ميغا ديغنايين markii dambe waxa uu soo wareegay xaggan iyo magaalada Hargeysa oo ka bilaabay shaqo isagoo kuraya waxaanu ka shaqeeyay hoteelada gaar ahaan waxa uu noqday mudalab aad u fiican muddo yar kadib waxa uu wareegay Djibouti halkaas oo muddo ku soo qaatay kadibna waxa uu soo wareegay Hargeysa waxaanu dib u bilaabay shaqadiisii hoteelada waxa uu ka shaqeeyay hoteelkii Ibrahim Cawke iyo Maxamed Yare oo ku yaala suuqa bartamihiisa gaar ahaan heegada isagoo shaqadiisa aad ugu fiican goorma ayuu hadaba Xuseen ogaaday inuu yahay abwaan waxna jili karo waxa uu ogaaday markii uu waafaray iyo geeraaro gaagaaban oo aad loogu qoslo tiriyay oo bulshada wada gaadhay aadna dadku u jeclaysteen jilinimadiisu waxa ay muujisay oo dibadda u soo saartay shaqadiisii waxa uu fanka ka bilaabay inuu wax la sameeyo oo koox markaas la onkay sanadkii 1973 oo la oran jiray Halgan oo ay lahaayeen ciidankii guulwadayaasha oo uu sameeyay abwaan Maxamed Cabdi Wayrax heestii ugu horeysay ee diiwaanka fanka gasha ee uu sameeyay waxa ay ahayd Ilwaad oo uu qaado Maxamed Faarax oo ay ka wada tirsanaayeen kooxdaas heestii labaad ee uu sameeyay waxa ay ahayd heestii uu aad ugu soo caan baxay ee la oran jiray tunka qaban cadow tabcun bay u mareen oo labadaba uu la xameeyay Maxamed Faarax riwaayadii ugu horeysay ee isaga iyo Kinsi ay ka wada qayb qaateen sanadkii 1973 waxa la oran jiray jacayl waa kana kaalay waxaana hal abuuray Axmed Saleebaan Bide markii uu noqday jilaa dadka aad u soo jiitay waxa qaatay kooxda Waaberi riwaayadii ugu horeysay ee uu la jiro kooxda Waaberi ayaa waxa ahayd dumistii aqalkayga iyo arooskii inankayga oo xilligaas 1976 laga keenay Muqdisho waxaanu ka galay booskii Abdiraxmaan aw Koombe oo Muqdisho kaga haray riwaayada aw Koombe waxa uu ku hadlayay af Muqdisho imakaba uu ku hadlo Boon waxa uu isku dayay inuu sidiisa oo kale afka Muqdisho ama aw Koombe iska dhigo laakiin way ku adkaatay Allah u naxariistay Maxamed Yuusuf Cabdi oo Boon mar walba dhiiri gelin jiray ayaa ku yiri sidan baad kaga fiicantay ku jil intaas kadib Boon waxa uu ka soo qayb galay riwaayado aad u badan oo ay kamid ahaayeen nin qasbaya jacaylka ma loo qoori karaa waraf iyo shimbiro inba tacabki Boon Allah u naxariistay bilowgii 8 waxa uu wareegay Djibouti halkaasna waxa uu ku sameeyay riwaayad la oran jiray riwaayadaas oo la magac baxday ikhtiyaarka ruuxii leh sidoo kale waxa uu ka qayb qaatay riwaayado badan oo xilligaas ka soo baxay Djibouti Allah u naxariistay Boon muddadii u dambeysay oo dhan waxa uu ku noolaa magaalada Hargeysa oo uu u dhashay ilaa intii uu xaq u yimid daawadayaal warbixintaasi hadii aan inta kaga nimaadno aan soo qabto markana warbixin kale oo ka waramaysa safiirka dalka Ruushka oo fadhiya Turkiga oo la toogtay warbixintani waxa wax ka qoray wargeyska war sugan ee ka soo baxa magaalada Hargeysa safiirka Ruushka oo fadhiya dalka Turkiga ayaa la toogtay xilli uu ka qayb galay bandhig sawreed
lagu qabtay magaalada Ankara sida laga soo xiganayo wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ruushka waxa uu safiirku u geeriyooday dhaawacii ka soo gaadhay ninkii dilka geystay ayay boolisku toogteen goor dambe waxa uu ku qaylinayay ninku tani waa argosi waxaad xalab ka sameyseen sida uu qofku jooga ah sheegay telefishinka laga leeyahay Turkiga iyo jaraa'idada ka soo baxa dhammaan dalka Turkiga ee laga leeyahay dalka Turkiga ayaa sheegay in warbixintaasi uu ninkaasi sheegay markii la toogtay ila waree dalka Ruushka ayaa sidoo kale iyaguna sheegaya in weerarkan ay ka dambeeyeen ismidaamintii maylka adkeyd ninka weerarka qaaday ayaa markii uu rasaasta cirka u riday kadibna waxa uu dhabarka ka toogtay safiirka Ruushka xilli uu taagnaa oo hadal jeedinayay ama jeedinayay khudbado waxaana ku dhaawacmay goobtaasi qof kale safaaradda Ruushka ku leeyahay Ankara ayaa mudooyinkii u dambeeyay si weyn loo ilaaliyaa kadib markii Ruushku si weyn u garab istaagay xukuumadda Bashar al-Assad ee dalka Syria oo lagu eedeeyay inay dambiye dagaal ka geysatay magaalada Xalab daawadayaal warbixintaasi haddii aan inta kaga nimaadno markana aan soo qabto warbixin kale oo wax ka qoray wargeyska Somaliland Today ee ka soo baxa magaalada Hargeysa warbixin iftiimisay in lamaanaha aadkiisu ku qanacsanay ay aad u naaxaan guurka kadib in ka badan 60% lamaanaha isku guursada farxad waxa ay noqdaan qaar aad u naaxsan marka ay muddo isqabaan daraasadan oo ay qaadeen khubro Ingiriiska u dhashay ayaa waxa ay tilmaameen in lamaanaha farxadda isku qaba ay cuntadu wax u tarto miisaanka jirkooduna uu noqdo mid aad u kordha daraasadan oo ay sameeyeen khubradan iyagu u dhashay dalkaasi Ingiriiska waxa sidoo kale ay ku ogaadeen in 60% lamaanaha isjecel ay ku fikiraan in midka kale siiyo cunto nafaqo leh si uu arko qofka uu nolosha wadaagayo oo jirahaan caafimaad qaba arintani waxa ay xiriirka guurka ka dhigtay waxyaabaha ugu badan ee keena buurnida dadka aadka u burburan lamaanayaasha xog ururinta cilmi baadhistani waxa ay sheegeen in 30% kamid ah in marka ay cuntada cunaan aanay waxa ula qaban isla markaasina ay iska daawadaan TV-ga halka 20% kalena ay tilmaameen in ay cuntada dibadda u doontaan oo aanay wax dhaqdhaqaaq sameyn xog ururintani waxa ay daa ka qaaday natiijo aad u xiiso badan waxaana wax lagu farxaa in lamaanaha aadkiisu ku faraxsanay noqdaan qaar jirahaan naaxsan oo caafimaad qaba kadib marka ay isguursadaan waxa hore loo ogaa in dadku marka ay jecel yihiin ay niyadahaan iska degaan waxaan aad ugu qanacnay in xiriirka wanaagsani uu door muhiim ah ka ciyaaro cunista cuntada lamaanaha ayuu yiri ninkani isagoo horkacay khibrada samaysay markan tijaabada isla markaasina uu yahay khabiir ku takhasusay miisaanka bini'aadamka kana tirsan xaruntaasi ku taala dalka Ingiriiska taasi hadii aan kaga nimaadno warbixinta markan aan soo qabto warbixin kale oo ka faaloonaysa haweeney hurdo ku dhameysatay 59 maalmood warbixintani aad ka wala yaabka badan waxa wax ka qoray wargeyska saxan saxo ee ka soo baxa magaalada Hargeysa haweeneydani oo ka shaqeyn jirtay xarunta qurxinta dharka iyo dadka oo ku taala magaalada London ee dalka Ingiriiska waxa ay si lama filaana u soo food saaray xaalad hurdo dheer wadata haweeneydani oo u dhalatay dalka Ingiriiska ayaa xaalad caafimaad darro oo ku aabsatay darteed hurdo ku dhameysatay muddo dhan 59 maalmood oo xiriidha gabadhani oo lagu magacaabo Mrs Imari oo jirtay 23 sano intii ay hurday waxa ay ku jirtay xaalad la mid ah sida ilmo caruur oo kale waxaana aakhirkii haleelay xanuun la yiraahdo leafing oo ah cudur ku dhaca dhiska neefyada sababana in qofku dheer hurdo isla markaasina hay'ad lagu qiyaaso ilaa iyo 1 qof oo daafaca caalamka ku kala nool haweeneydin ayaa markii ay soo kacday iyadoo ka sheekeynaysa xaaladii ku habsatay waxa ay tiri dhabaantii arintani saameyn weyn bay igu yeelatay naftayda iyo qoyskayga maalmihii hore cudurkani haleelay hooyaday waxa ay u haysatay in aan nasanayo oo aan daalanahay aniguna sidaas oo kale ayaan u haystay balse waxaan u baahday qof xaaladayda la socda hooyaday iyo walaashay ayaa iga shaqeynayay ayay tiri gabadhani Mrs Imari dhibaatadani heshay sanadii 2008 iyadoo jirtay 18 waxa ay markii ugu horeysay hurday 10 maalmood waxa ay tir mararka qaar ee diyaarada raaco waxaan dareemaa lulo aan xad lahayn laakiin waxaan isku balamiyaa dadka qaar inay xaaladeyda la socdaan haddii aan joogo goob shaqo ama baan tago meelaha baararka waxaan isarkaa anigoo sibidhka seexday qof kastaana iga dul talaabsanay dhammaan baaqiyaarta awada nagala xidhiidhay wali waxaan bartanka kaga jirnaa barnaamijkeeni xiisaha iyo xulashada wargeysada barnaamijku wuxuu idinkaga imanayaa Star TV xaruntiisa guud ku leeyahay magaalada Hargeysa warbixintaasi hadii aan inta kaga nimaadno markana aan soo qabto warbixin kale oo wax ka qoray wargeyska Geeska Afrika ee ka soo baxa magaalada Hargeysa wiil yar oo jira 3 sano oo maafiyaan ku dileen dalka Mareykanka wiil yar oo 3 jira oo ayidii u sii qaadatay suuqa laga dukaamaysto ayaa dhintay kadib markii ay haleeshay xabad uu ku soo riday ninka cadhooday sida ayidii gaariga u waday
arrintaasi ayaa ka dhacday magaalo ku taala dalka Mareykanka. Gaadhigu wiilku saarnaa waxa xabada ku soo riday darawal kale oo qaatay amaba salugay sida ay islaantu u wado xawaaraha gaadhiga gudubto nalka dadka kala hagaya inta uuna joojin. Wiilkani ayaa cisbitaalka kula carartay balse markii dambe cisbitaalka ayuu ku geeriyooday. Booliska ayaa sheegay inay deedeeyaan gaadhi madow balse aanay garanayn nooca uu yahay. Wax faahfaahin aanay ka hayn. Ninkii waday waxa xabsiga la dhigay wiil dhalinyaro kaasi oo aflagaadeeyay dhowr diimood. Wiilkana ayaa meel fagaara ka aflagaadeeyay diinta Kiristaanka iyo waliba Islaamka. Waxaana uu ku kasbaday in ciidamada ammaanka ee dalkaasi xabsiga dhigaan. Booliska magaaladan ayaa Twitterka ku qoray in wiilkan iyo ayeeyadii ayna wax dambiya lahayn isla markaasina aanay wax calaaqada la lahayn ninkii hubaysnaa ee falkaasi ka dambeeyay balse arrinkani lagu tuhunsan yahay ay ahayd in xiriir ay la lahaayeen nimanka fadhiyo 2 jir ayaa ku dhimatay isla magaaladaasi kadib markii uu ku soo kaxeeyay dhankooda rasaasna ku furay gaadhiga ay saarnaayeen. Ilaa iyo haddana boolisku gacanta kuma aysan dhigin ninkii ka dambeeyay dilkaasi gabadha. Kacdoon shacbi oo laga cabsi qabo dalkaasi Congo kadib markii doorashadii madaxtinimada dalkaasi ay dib u dhacday. kumanaan kun oo hubaysan oo isugu jira boolis iyo kuwa sida gaarka loo tababaray ayaa banaanka iyo dariiqyada la soo tubay dalka Congo kadib markii uu dhamaaday muddaxileedkii madaxweynaha dalkaasi Kabila. Ma muuqato wax doorasho oo dalkaasi laga qabanayo waxaana khatar weyn ku jira amniga dalkaasi inay rabshado ka bilowdaan. Waxa jira khatar aad u weyn inay ka qarxaan rabshado aad u waaweyn dalka oo dhan maalmaha soo socda sida waxa yiri ninka tirsan hay'adda xuquuqda aadamaha ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano HRY. Caasimada dalkaasi ayaa dadku bilaabeen inay iibsadaan wax allaaliye wixii cunaa ee ay u baahdaan ama u baahan karaan muddo dheer. Waxaanay ka cabsi qabaan in dukaamada xirmaan. Diyaaradaha dalkaasi tagayay iyo kuwa ka soo baxayba maalmihii u dambeeyay waxay ahaayeen kuwa faaruqa. Sidoo kalena waxa dalka laga saaray qaar ka mid ah diblomaasiyiintii shisheeye. Dabcan daawadayaal markana soo qabto warbixin kale oo ka faaloonaysa ahmiyadda biyaha bariiska ay u leeyihiin timaha iyo jirka dumarka. warbixintani waxa wax ka qoray wargeyska war sugan ee ka soo baxa magaalada Hargeysa. bariisku waa cunto dhaqameed uu yahay qayb ka mid ah dunida gaar ahaan wadamada Aasiya sida China iyo Japan. Dumarku muddo qarniyo ayay u isticmaalayeen bariiska inay isku qurxiyaan jirkooda iyo timahooda. Waxa ayna rumaysnaayeen in bariisku leeyahay faa'iidooyin dhanka quruxda. Biyaha bariiska waxa ku jira nafaqooyin faa'iido u leh jirka iyo timaha. Waxa ka mid ah vitamin B, vitamin C iyo vitamin E. Sidoo kale waxa ku jira macdano iyo waxyaabaha loo yaqaan amino acid oo kobciya caafimaadka iyo quruxda qofka. Faa'iidooyinka biyaha bariiska waxa ay timaha ka dhigaan kuwo fiican, xooggan isla markaasina caafimaad qaba. Biyaha bariiska waxa ku jirta maado la yiraahdo inositol, maado loo yaqaano inositol oo ka hortagta burburka timaha. Biyaha bariiska leh waxa ay caawiyaan koritaanka timaha. Biyaha bariisku waxa ay u fiican yihiin tinta khafiifta. Waxa ay maqaarka ka dhigaan mid jilicsan. Waxa ayna yareeyaan daldaloolka maqaarka. Waxa ay ka hortagaan finanka. Waxa ay dejiyaan cuncunka jirka. Waxa ay caawiyaan joogteynta midabka dabiiciga ee maqaarka. Tijaabooyinkan caalamiga ayaa lagu ogaaday in biyaha bariiska leh ay leeyihiin waxtar fiican oo dhanka isqurxinta isla markaasina ay bedel u noqon karaan daawooyinka kiimikada ee la isku qurxiyo ama loo isticmaalo inay dumarku isku hagaajiyaan. dabcan daawadayaal warbixintaasi waxa ay guniga gabagabo ahayd barnaamijkeena xiisaha iyo xulashada wargeysada. barnaamijkooda kaga imanayay Star TV xaruntiisa guud ku leeyahay magaalada Hargeysa. barnaamijka alaabo waxay idila socodsiisa sidoo kalena isku soo dubaridaan anigoo Nashaad Farxaan Caliya. dhanka kamarada iyo muuqaalkan aadka quruxda badan leh waxa suura galiyay Cabdiraxmaan Daacad iyo Muxyidiin. dhamaantii anagoo isku duuban tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan lamida waxaan idinku dhaafaynaa isarag maqal dambe oo xiiso leh.